بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, madaxweyne ku-xigeenka, golaha wakiilada iyo wakiilada guud ahaan iyo golaha wasiirada iyo shacab weynaha reer Puntland magaaladan Garowe degan sida wanaagsan oo sharafta badan oo Soomaalinimada waaltinimada leh aniga iyo wafdigeyga noo soo dhaweeyeen. waxaan runtii la kulanay marxalad cimilada aad iyo aad u kulushahay bil Ramadaan oo umada cibaadeysanayaan bacdama ay tahay bil barakeysan oo ay nagu adag tahay dadkii inaan qaabilno ama kulamo sameeyno. saas oo kale waxaan doonaynaa in kastoo waqti nagu yar yahay inaan tagno Laascaanood Khaatume State laakiin iyada naftigeeda dadka uga turnay xilligan adag ee kuleelaha ah iyo bishan Ramadaan dadku cibaadeysanayaan inaan dadkii aan dib u geysano kulamadoodii iyo soo bixitaankooda. laakiin waxaan aniga iyo markii aan ka wada hadalnay hogaamiye Firdhiye Cabdiqaadir Firdhiye aan isu sheegnay inay qurxoon tahay inaan dib u soo noqdo marka kulanka ama shirka halkan ka dhacayo aan waqti fiican ku imaado Khaatume aan ka bilowno magaalada Laascaanood, Buuhoodle, Gumeys iyo Carooley iyo wixii suurtagal oo deegaanadaas ah oo aan dadka la kulanno. hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rajeynayaa si dhaqsi leh inaan ugu soo noqdo Puntland kadibna aan socdaalkaas aan ku bixiyo Khaatume. hadduu Ilaahay yiraahdo waa mahadsantihiin. Ramadaan Kariim. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.